بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نما خميسة طبنك بشا جولاي سنة كالبكون لباتن يشن أو كوبهجن شن يطبنك بشا محرم سنة كون أفر بقول فرتن يتضبا تاريخ ذي جريد كسود واضح قضبضا أن إذي كوها إننا وحا كمدا وحوتية يمن أو ساكي وير جنتال كل شرمادي إسرائيل halkaasi oo ay ka dhacday kala carar iyo hurdada oo laga soo salalay seeriga digniinta ka bixiya gantaalada ayaa isqabsaday magaalooyin iyo deegaano kala duwan militariga Israa'iil oo qirtay qasaare hor leh oo ciidankooda ka soo gaaray dagaalka Gaza waxaa ka mid ah weerar hal dagaalyahan oo adeegsanaya qoryaha liishaanka fog wax ka toogta oo ku beegsaday isku mar 3 askari warbaahinta Israa'iil oo saaki qoraysa warbixin cajiib ah oo ku aadan in Xamaas si weyn dagaalka isugu qaabaysay ayna samaysatay hoggaan ciidan oo howlgallada u maamulaya si xeelad iyo farsamo sarreysa faahfaahin ka soo baxaysa askari Israa'iiliya oo isku dhex dilay xerada ciidankiisii oo ka tirsanaa wararkii ugu dambeeyay qasana barnaamijka waan idinkugu haynaa Mareykanka oo cunaqabateen ku soo rogay مسؤول كترسن قرمد مدومي أو سي جوجته أصو صارته وربحنا لحدينا حسوق إسرائيل كود جزة يدرك قعنته كسينا يه إلى لا حساب طبعا باكستان يا تركيا ويا شيء كون هير صراحة حل هي صدق قبل كا يتدون ذا أي عركس كسي شريريسو سيدو كلا برامج كوحنا ذي كوهاينا روشكا أو دوقيمة عروس أو دمشق دعوة بربر بحسن جيستي كوقعدي عاصمة يوكرين كييف iyo magaalooyin kale iyadoo ay sii karar qaadanayso colaadda 3 sano jirsatay ee Ukraine iyo Ruushka intaan u gudbin warbixinta la xiriirta weerarka xoutiyiinta saaka ay kula jarmaadeen Israa'iil halkaas oo ay ka dhacday kabta ay go'een iyo kala carar waxaynu ku bilaabaynaa dhanka Ukraine halkaas oo lagu soo waramayo Ruushka duqeymo culus in saacadihii la soo dhaafay ku qaaday magaalada caasimadda ee Kiev iyo waliba gobolka kale ayaa kamid ah meelaha sida baan duqeynta loo eegtay duqeyntan ayaa lagu soo waramayaa in magaalada Kiev dhowr xaafadood dab u ka kacay iyadoo la sheegay in ugu yaraan 3 qof ay geeriyootay halka 10 kalena ay dhaawacmeen sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Ukraine weerarkan ayaa yimid iyadoo haysadu cirka isku sii shareerayso isla markaasna dhawaan Ruushka uu qaaday weerarkii ugu dhimashada badnaa uguna qasaaraha badnaa duqa magaalada Kiev Vitali Klitschko ayaa ku sheegay fariin uu soo dhigay Telegramka in kooxaha gurmadku ay ka shaqeynayaan dhismo ka kooban dhowr dabaq oo ku yaal degmada Shevchenkivski kadib markii burbur walxa qarxa uu sababay dab ka kacay dabaqa sare ee dhismaha madaxa maamulka gobolka Kiev Timur Takashenko ayaa isla dhankiisa waxa uu sheegay in dab uu ka kacay ugu yaraan 5 xaafadood oo kale oo ay ku jiraan guryo la degan yahay baabuur baqaaro xafiisyo iyo dhismayaal cidla ah oo dadna aysan deganayn weerarkan ayaa waxa uu yimid kadib markii Ruushka habeen hore Ukraine ku qaaday weerarkii ugu ballaarnaa tan iyo markii colaadu ay bilaabatay isagoo adeegsaday in ka badan 700 oo diyaaradaha ismiidaamiya iyo gantaalada nooca balastiga dhanka furimaha hore ee dagaalka ciidamada Ruushka ayaa kordhiyay howlgallada dhanka xadka dagaalka ee gaaraya ilaa iyo 1,000 kilomitir xilli ciidamada Ukraine ay la daala dhacayaan tabar darri iyo cadaadis sii kordhaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii muujiyay niyad jab oo ka qabo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin kaas oo aan wax dabacsanana ka muujin dalabaadka xabad joojinta ama heshiiska ee ka soo yeeraya Trump tani markii xilka uu la wareegay bishii January Trump ayaa isniintii sheegay in Mareykanka uu ku qasbanaaday in hub dheeraad ah uu u diro Ukraine dhowr maalmood kadib markii Washington ay joojisay dirista hub muhiim ah oo loo waday Kiev waatahay waxay wararka ku soo kordha dagaalkaasi oo aynu arki doonaa markale aynu eegno dhanka Israa'iil halkaasi oo lagu soo waramayo xoutiyiinta Yaman in saakay waa berigii ay kula jarmaadeen weerar gantaal iyadoo korna u sii kacayso colaadda u dhaxaysa
labada dhinac. warbixinadii ugu dambeeyey xogaga xuutiyiinta waddanka Yaman ayaa lagu soo warramayaa inay xoojiyeen weerarada ka dhanka Israa'iil iyo go'doominta dhanka badda iyo cirka. weerarka gantaal ee saaki ayaa sababay in seeriga digniinta ka bixiya gantaalada uu isqabsado deegaano badan oo ka mid ah bartamaha Israa'iil oo ay ka mid yihiin Tel Aviv iyo deegaanada ku hareeraysan magaalada Qudus iyo daanta galbeed dhulka Falastiiniinta ee la haysto. militariga Israa'iil ayaa war ay soo saareen waxay ku andacoodeen inay ku guuleysteen inay hawada ku burburiyaan gantaalka laga soo riday Yaman subaxnimadii hore ee saaka oo Khamiisa. taniyo sanadka 2023 xuutiyiintu waxay wadeen weerar gantaalo iyo diyaaradaha droonka ee ismidaamiya loo adeegsanayo oo ay ku qaadayeen Israa'iil iyagoo ku sababay taas inay uga aargudayaan dadka reer Gaza oo Israa'iil ay ku hayso dagaal iyo duqeyn safmar ah. xuutiyiinta ayaa toddobaadkan waxay sheegeen in ay gubeen 2 markab oo ganacsi muddo 24 saac gudahooda meel u dhow xeebaha Yaman. maraakiibtaasi oo la xiriirinayo Israa'iil. waa hagaag markana dhanka Islaamabad iyadoo xiisada gobolka iyo caalamku ay ka sii darayso ayaa wafuud sare oo ka socota waddanka Turkiga waxa imika ay ku sugan yihiin magaalada Islaamabad ee caasimadda waddankaasi Pakistan, halkaasi oo lagu soo warramayo in wadahadalo ay leeyihiin mas'uuliyiinta ugu sareysa waddanka Pakistan. wakaaladda wararkii Anadolu ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa qoraysa in ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif magaalada caasimadda Islaamabad uu ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan iyo wasiirka difaaca ee Turkiga Yasir Golar. wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa war qoraal ah oo kooban oo ay ku daabacday baraheeda bulshada waxay ku sheegtay in Fidan iyo Golar kulan ay la yeesheen ra'iisul wasaaraha Pakistan. wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ee dalka Turkiga ayaa booqasho rasmi ah ku jooga Pakistan. ujeedaduna waxay tahay xoojinta xiriirka ka dhaxeeya labada dal gaar ahaan dhinacyada iskaashiga. arrinta marka waxay ku soo aadaysaa iyadoo xiisadu ay ka sii darayso isla markaasna labadan wadan oo ka mid ah quwadaha ugu waaweyn ee muslimka ay wajahayaan culays aad u weyn. waxaan halkan idinkaga soo gudbinay in Hindiya iyo Greek ay ka shaqeynayaan sidii Greek loo siin lahaa gantaalo casri ah iyadoo arrintan lagu tilmaamay inay tahay mid khatar gelinaysa amniga dalka Turkiga. sidoo kale Pakistan ayaa waxay wajahaysaa khatar weyn oo ka imaanaysa Hindiya oo iskaashi la leh dhanka Israa'iil. marka waxay leeyahay arrintan labadan wadan waxay sidoo kale ku soo aadaysaa iyadoo cadaadis weyn lagu hayo Iiraan isla markaasna labada wadanba ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan duulaanka qaawan ee Israa'iil ay ku qaaday Iiraan isla markaasna la doonayo in arrimahaasi laga samaysto isbahaysi oo inuu arki doonaa wixii ku soo kordha arrimahaasi. laakiin dhaqaaqyo waaweyn ayaa socda. waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee Gaza halkaasi oo militariga Israa'iil ay qirteen khasaaro hor leh oo ciidankooda ka soo gaaray. askari Israa'iiliya oo isna isdilay oo xogta dheeraad ay ka soo baxaysa sababta isku dilay iyo Mareykanka oo cunaqabateyn ku soo rogay haweeneyda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha ee Falastiiniyiinta. maxay tahay sababta gabadhan cunaqabateynta loo saaray? waan idin faahfaahin doonaa qodobadaasi iyo kuwa kale, laakiin aynu ku hakarno qadar xayeysiin. waa tahay xagga Israa'iil baynu ka hormaraynaa. dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay xogaga iska cabinta Falastiiniyiinta waxay kordhiyeen weerarada ka dhanka militariga Israa'iil. weliba hadda militariga Israa'iil waxay qiranayaan in iska cabintu ay la soo baxday xeelado la yaab leh. howlgalladii ugu dambeeyay waxaa ka mid ahaa shalay Khan Yunis in askari Israa'iili ku sigtay gacanta inuu u galo xoogga iska cabinta Falastiiniyiinta. sheekadaasi xalay ayaan ku faahfaahinay barnaamijka qubanaha. haddii aadan daawan barnaamijka markaa dhammaysato dib u daawo, maxaa yeelay askari Israa'iili ayaa farcdiile uga baxsaday iska cabinta. haddii arrinta dhici lahaydna waxaa leeyahay ceeb baa dhici lahayd, Netanyahu xafiiskiisa loogu geli lahaa. sababta maxay tahay? meeshii la doonay in la soo badbaadiyo dadka lagu haysta marayka Gaza maxaabiis ahaanta, haddii maxaabiis askaraha la qabsado maxaa dhici lahaa? waa hagaag. haddaba wararka ugu dambeeyay aynu eegno gaar ahaan militariga Israa'iil oo ka warramaya khasaare ciidankooda ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeyay.
warbaahinta Israa'iil ayaa ka soo xigatay taliska ciidamada Israa'iil in 3 askari oo ka tirsan guutada 7aad ee qaybta 99aad ay ku dhaawacmeen rasaas uu furay dagaalyahan Falastiiniya oo adeegsanaya qoryaha liishaanka toogashada dheer ee loo yaqaan shaabshootarada gudaha Mareykanka Gaza sida lagu sheegay bayaan rasmi ah oo militariga Israa'iil ay soo saareen dhaawacyada askarta ayaa waxa lagu sheegay kuwa culus iyo kuwa dhexaad inay iskugu jiraan waxaana weerarka uu ka dhacay gudaha jiida qase gaar ahaan furimaha hore ee dagaalka dhinaca kale militariga Israa'iil ayaa faahfaahin ka bixiyay dilka askari shalay loogu geystay magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza warbixin hore dhaca oo laga helay baaritaan militarigu ay sameeyeen ayaa waxa ay muujinaysaa in dagaalyahanada Falastiiniyiintu ay ka soo baxeen god dhulka hoostiisa kuna yaal gudaha Khan Yunis halkaasi oo ay ku weerareen cutub military oo ciidamada ka tirsan bayaanka ayaa waxa intaasi oo ku daray in weerarkaasi lagu dilay askari waday gaari ciidamadu ay leeyihiin kadib markii kooxdii weerarka soo qaaday ay isku dayeen inay askariga afduubtaan halkaasi waxa ka dhacay iska horimaad kadibna waxa la sheegay askariga halkaasi inuu ku geeriyooday sida warbixintu ay sheegayso waa sheekada marka ugu daran saakay warbaahinta Israa'iil wax kale ma ka hadlaysaa waxa leeyahay nimankan la yiri waa la burburi awoodoodii oo nolol sheegayo waaba nimanka ku dhiirinaya askar inay qabsadaan sidoo kale aynu eegna marka laba warbixin oo kale oo midna uu qorayo wargeyska Haaretz warbixinta kale uu qorayo wargeyska Maarif hagaag waxaynu ka hormaraynaa warbixinta jariirada Haaretz ay qortay jariiradan waxay ka hadlaysaa askari ka tirsan guutada Golani oo isdilay toddobaadkan isagoo isku dhex toogtay saldhigga Sedyaman ee ku yaala lama deegaanka Naqab warbixinta ayaa waxay sheegtay in askarigan isdilay kadib markii uu wajahay baaritaan ay wadeen booliiska baarista militariga waxaa sidoo kale la xusay in askarigan laga saaray Mareykanka Gaza si loo geeyo tababar la xiriira habka nidaamyada ciidanka halkaasi oo ay ku sugayeen saraakiil military si ay ula xiriiraan baaritaankiisa sida laga soo xigtay warbixinta taliyaasha askariga isdilay ayaa waxay go'aansadeen in qoriga laga qaado kadibna waxa la bilaabay wareysi in la yeesho saacada kadib ayuu intuu qori ka qaatay askari kale isagii istoogtay waaye wargeyska Haaretz sheeko kale u qoraya marka aynu eegno saaka warbixinta buu qoray wuxuu leeyahay askarteen waxa lagu leeyanayaa Gaza halka mas'uuliyiinta Israa'iil ay ku dabaaldegayaan xaflado ra'iisul wasaaruhuna uu ku sugan yahay Washington isagoo leh heshiis iyo arrimo kale baa la gaari doonaa laakiin ku xiraya shuruudo aan suurtagal ahayn kuwaasi oo ugu dambeyn fashilmi doona arrintaas waa ceeb ayuu leeyahay wargeyska Haaretz dhinaca kale wargeyska Walla ee ka soo baxay Israa'iil ayaa sana waxa uu daabacay saakay warbixin xasaasiya wargeysku waxa uu leeyahay Xamaas dib ay isku qaabaysay gaar ahaan qaab dhismeedka dhanka hoggaanka Mareykanka Gaza iyadoo la soo baxday xirfad abaabulan oo dagaal sida lagu sheegay warbixinta Xamaas waxay muujisay baa la yiri awood weyn oo ay ku midaysay dadaaladeeda dhanka militariga taasoo keentay weerar taxara ah oo lagu qaaday ciidamada Israa'iil cidda fulisay weeraradaasi waxay leedahay karti aad u sareysa oo ku saabsan sida loo maamulo qaab dhismeedka dagaalka ayaa lagu yeeray warbixinta Walla oo tilmaamtay in Xamaas ay leedahay waayo aragnimo iyo qorshe ciidan oo heer sare ah warbixinadan warbaahinta Israa'iil saakay bogagga hore wargeysada arrimahan ayaa laga hadlayaa telefishinada iyo raadiyaashana doodo adag ayaa ka socda waxaan leeyahay marka waxaan wuxuu ka digayay General Yitzhak Brik oo uu lahaa war meeshan qasama taqaanaa yaa lagu degdegin dhiiqan ku galaynaa wahagaag intaan u iman Mareykanka cunaqabateen ku soo rogay madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay dhulka Falastiinta aynu eegno Mareykanka Gaza iyo duqeymihii ugu dambeeyay Israa'iilkaasi ay ka geysatay telefishinka Al Jazeera ayaa hadda wuxuu soo tooray war degdeg ah isagoo sheegaya in 13 qof oo Falastiiniin ah oo meyd la keenay cisbitaalka Al Aqsa waxaana la sheegaya inay ku jiraan haween iyo caruur waxaana lagu soo waramayaa in duqeymo kale ay ka socdaan qaybo kala duwan oo kamid ah Mareykanka Gaza macluumaadkan waxaa kamid ah in daara balax duqeyntu ay ka dhacday iyadoo sidoo kale la sheegaya goobaha raashika lagu qaybinayo in dad badan oo Falastiiniin ah lagu laayay waaye markaan balayno eegno warbixintan ku aadan Mareykanka oo cunaqabateen ku soo rogay
gabadha lagu magacaabo Francesca Albanese oo ah haweeneyda u qaabilsan ama wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha xuquuqda aadanaha ee dhulka Falastiiniyiinta waxa leeyahay waxa loo haystaa kadib markii dhowr warbixin oo ay daabacday ay kaga hadashay kuna cadaysay xasuuqa Israa'iil ka geysanaysa Mareykanka Gaza ayna ku baaqday in la maxkamadeeyo cid kasta oo ku lug leh dambiyada ka socda Mareykanka Gaza xogayaha amuuraha dibadda ee dalka Mareykanka Marco Rubio ayaa qoraal uu soo saaray isla markaasna uu ku daawacay baraha bulshada wuxuu ku yiri maanta waxaan cunaqabateyn ku soo rogay Francesca Albanese wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha sabab la xiriira dadaalkeeda sharci darrada ah ee ceebta ah ee ay ugu baaqayso maxkamadda dibadda dagaalka ee ICC inay tallaabo ka qaado saraakiil shirkado iyo madax ka tirsan Mareykanka iyo Israa'iil Rubio waxay taasi ku daray mar dambe looma dul qaadanayo ololaha Albanese ee dagaalka siyaasadeed iyo dhaqaale ee ka dhanka ah Mareykanka iyo Israa'iil Francesca Albanese ayaa tan iyo bishii Oktoobar 2023 waxay soo saaraysay warbixino dhowr ah oo ay ku cadeynayso xasuuqa Israa'iil ka wada Gaza iyadoo sidoo kale codsatay in la maxkamadeeyo dadka ku lugta leh dambiyadaasi warbixinteeda ugu dambeysay ee bishan July soo baxday Albanese waxay ku eedeysay in ka badan 60 shirkadood oo caalami ah oo ay ku jiraan kuwa Mareykanka laga leeyahay oo isugu jira kuwa farsameeya hubka iyo tiknoolajiyadda inay taageero siinayaan hawlaha military ee Israa'iil ka wada Gaza iyo daanta galbeed ee Israa'iil ay haysato shirkadaha lagu eedeeyay dambiyadan waxaa ka mid ah shirkadda Lockheed Martin oo ah shirkadda farsameysa diyaaradda F-35 shirkadda kale ee lagu magacaabo Leonardo ayana hubka farsameysa shirkadda Caterpillar ee samaysa cagaf-cagafyada shirkadda laga leeyahay Kuuriyada Koonfureed ee HD Hyundai sidoo kale shirkadaha waaweyn ee dhanka tiknoolajiyadda sida Google, Alphabet, Amazon iyo Microsoft ayay gabadhani eedayn u jeedisay warbixinta ayaa waxay sheegtay in shirkadahan Israa'iil ay siiyeen hub qalab ama ay u fududeeyeen qalabka sirdoonka taasi oo gacan ka geysatay burburka Gaza iyo ku xadgudubka xuquuqda aadanaha maanta oo Khamiis ah Albanese waxay dalbatay iyadoo ugu baaqaysa 3 wadan oo reer Yurub ah oo kala ah Talyaaniga, Faransiiska iyo Greek inay sharaxaad ka bixiyaan sababta ay u siiyeen marin dhanka hawada ah oo amniya ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo maxkamadda dibadda dagaalka ee ICC ay baadi goobayso isagoo isticmaalay hawada wadamadaasi diyaaradiisuna ay dul martay dalalka Talyaaniga, Faransiiska iyo Greek intii uu ku sii jeeday magaalada Washington Albanese ayaa qoraal ay soo dhigtay baraha bulshada waxay ku tiri dawladaha Talyaaniga, Faransiiska iyo Greek waa inay cadeeyaan sababta hawadooda ay ugu fureen Benjamin Netanyahu oo ah qof ay ICC raadinayso oo ah in la xiro halkii laga qaban lahaana hawada loo ogolaaday inuu dul maro maxkamadda dibadda dagaalka ayaa 21 bishii November ee 2024 waxay soo saartay amar lagu xirayo Netanyahu isagoo lagu eedeeyay dambiyo dagaal oo kana aadanaha oo ka dhacay jiida Gaza Netanyahu oo haatan ku sugan dalka Mareykanka ayaa halkaas wuxuu kulamo kula leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waaye markaas arrinta maraysa Mareykanka marka waxay leeyihiin gabadhan shirkadaha iyo mas'uuliyadda Mareykanka iyo Israa'iil ayaa beegsanaysa sidaas darteed cunaqabateyn baan ku soo rogaynaa laakiin way ka hadashay ayuu arrintaas waxay tiri maalin walba waxaan helaa bay tiri hanjabaado caga jugleen laakiin u joojimayay anu shaqadeena wataa bay tiri wax allaala waxa aan soo bandhigayna waa wax cadeymo wata saas isku difaacaysa waa tahay sheekada ku saabsan weerarka Xuutiga ay ku qaadeen Israa'iil weli Xuutiga ma aysan hadlin dabcan saacad ama 2 saac kadib uu soo hadli doonaa afayeenka militariga Xuutiyiinta General Yahya Sariic sheekadaas wuxuu ku soo kordha barnaamijka wararka maanta oo saacada kadib soo gali doona ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii Allah idmo inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka iyo sida aad ula socotaan barnaamijyadan una sii qaybinaysaan like-ta u saaraysaan isla markaasna aad ula sii wadaagaysaan saaxiibadeena aad baan idinkaga mahadcelinaynaa intaas iyo nabadgelyo ayaan idin leeyahay nabadgelyo